ترتيب موصب عليس ما ولا اسمع ترتيب سومالي لان معي ugu soo hambaliyayse Soomaaliya anaga hambaliyay madiidayno walaal la hambaliyay jire shaadee sharafata markay dhashay walaal hambaliyay hambaliyaanka markay dhashay gariir markuu soo baxay dad badan amaar buu hambaliyay muhiimadu waa inay Soomaaliland gobolto markaa lagu soo birtaa rabta hawa ka soo cartay liintii waxa ka soo cartay shuruuda jirta maxaa bisha u hore ina baabajay maray u dhaqay الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaasheeda qiimaha qaayalo meel kasta joogtaan soo dhawaada shabakada wararka Sayla 24 bal maanta waxaan idin haynaa faal gaar ah aan ku eegayno maxaa soo shaac saaray ama goorma ayay soo baxday tuhunka ah aamusnaantii faraha badnayd ee Somaliland ee muddada 20 sanadood ay Soomaaliya kala aamusnaayeen markay Soomaaliya wada hadleen 2012 maxaa Somaliland iska bedelay yaa soo saaray aragtida ah in Soomaali nacaybku uu xal u yahay Somalilandnimada lafteedu markii hore ma waxay ku jirtay aqal madow aan cidi ka soo saaraynin xisbigii udub Somaliland halkee buu dhigay xisbiga kulmiye Somaliland halkee buu marinaya sidaynu la wada socono 12 sanadood ee ugu dambeeyay Somaliland waxa hogaaminaya aragtida xisbiga kulmiye oo ku salaysan in Soomaalinimada la naco Somalilandna lagu noolaado oo lagu shaqeysto aragtidaasi in badan bay meelo fara badan kolba sii mareysay laakiin imika Nairobi bay maraysaa oo af Soomaaliga bay baratay wiilka dhalinyarada aan idin soo bandhigay aragtidiisu waa aragti ka timi shakhsiyad reer Somaliland oo xukuumaddu ay Nairobi dhigatay kadibna aragtida noocan faafiya ama fidiya Somaliland waxa ku soo badanaya 40 jirada Soomaalinimada neceb Somaliland oo haysta inay ku nool yihiin oo ay masaariif u tahay aragtida noocaasi waa aragti Somaliland burburinaysa khatarna ku haysa Soomaalinimada hadaba su'aasha mudnaanta ahi waxay tahay Somaliland intii aan kulmiye qabsan maxaa laga aaminsanaa maadaama xisbigoodu aanu aaminsanayn in Soomaaliya marnaba wada hadal la sameeyo dawladda Soomaaliya wax weyn bay warkaysay dawladda Somaliland waxaanu warkiyeen in arrin xoog weyn la aamusan yihiin laakiin markii albaabka la furay waxay arkeen waxa qolka ku jira baynay yihiin waxa ay iminka arkayaan oo ah hebelo telefoonka iga qabo iyo xamar oo habeenkii la hadlo aragtida noocan Somaliland waxa loo baahan yahay mar labaad inta laga fadhiisto in la isweydiiyo la yiraahdo Somalilandnimadu ma waxay ku imanaysaa Soomaaliya la naco mise waxay ku imanaysaa Somaliland oo danaheeda iyo ayaheeda ka tashata wixii ka dambeeyay 2012 dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaalidu waxay fahmeen in dad badan oo Somaliland jooga oo kolba wixii ku hadla in wuxuudu ay ku siman yihiin telefoonka iga qabo iyo waan kula soo hadlayaa xamar maxaad iga haysaa Somaliland waxay u baahan tahay cid xisbi furata oo aaminsan Soomaalinimada oo hargeysa dhexdeeda calankeeda buluuga ka dhex taagta aragtidoodana sida ku faafiya cidii ku raacaysa ha ku raado cidii ku diideysana ha ku diido Soomaali weynta niqaamanna ay cadaato oo cuqdada iyo cunsuriyada ay ka baxdo iyo dadka ay soo ekaysiinayso Soomaaligu waa Soomaali meeshuu doonaha joogay Somalilandnimaduna uma baahna xamaro la caayo iyo hargeyso la amaano laakiin waxay u baahan tahay aragti iyo qadiyad siyaasiyiinta Somaliland waxa looga baahan yahay inay daacad ka noqdaan Somalilandnimada oo aanay noqonin meel ay ku masaariifsadaan ciyaalkooda iyo danahoodana ku ilaashadaan waaniga Absaaq Axmed Jaamac idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo meel kasta aad ku sugantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ألمو فضوليو فاقدان مدايي انتي كولا فقاموي فرهنا لسوقلي وحن فايدة وجرين ألمو فضوليو
inti kula faqaan way farahana la soo geli